لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. aynu ogsoonnahay sida taariikhdu ay u socoto in ciidul adha ay ku beegmayso maalinka jumcaha waxa maalinka markaa kulmaya ciidaan ciidul adha wa ciidul usbuuc wa ciida jumcaha labada ciidood ba kulmaya labada ciidood marka ay kulmaan raad nooceeya ay ku yeelanayaan salaadii jumcaha waxa imaam Ahmad iyo Abu Daawud iyo Nasa'i iyo Ibn Majah ay wariyeen can Muawiya radiyallahu anhu in waqtigii nabiga alayhi salatu wasalaam ciid iyo jumcuha ay kulmeen rasuulku alayhi salatu wasalaam inuu ciidii tukaday kadibna dadkii u ruqseeyay inay iska daayaan tukashada salaada jumcaha xadiis kale la macnaayna waa jirta ka xadiis Abi Hurayra iyo hadallo laga soo wariyay saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhi marka waxaan leenahay masalada ahkaamteeda inagoo soo koobayna qofku hadaanu salaada ciid tukan salaada jumcaha inuu tukada sidii bay faral ugu tahay waa masalada koobaad oo qofka waxa uu ruqsaynaya inuu salaadii jumcaha iska daayo markay ciid iyo jumcuhu kulmaan tukashada uu tukaday salaadii ciid masalada labaad waxay tahay qofka salaada ciid tukaday waxa uu banaan maalinka inuu jumcaha iska daayo laakiin bedelka jumcaha wuxuu tukanayaa salaadii duhur oo 4 ragcadood salaadii duhur oo 4 ragcadood ayuu tukanayaa waayo xadiisa kuma cadda tukashada ciidu faralkii maalinka inay meesha ka saarayso waxa xadiisa ku cadun inuu jumcaha iska dayn karo qofkii salaada ciid waxa weeyaan tukaday qowlka marka oranaya qofkii ciid tukaday maalinka jumcaha iyo duhur midnaba tukan maayo qowl aad iyo aad u daciif weeyo taag daran culimada islaamkuna aad iyo aad ay u dhaleeceeyeen masalada afraad waxa ay tahay imaamka dadka salaada jumcaha tukiya salaadii jumcaha sidii buu oogaya dadkii ciid tukaday iyagu ruqsay u haystaan inay iska hadhaan duhur ay iska tukadaan laakiin imaamku salaadii jumcaha uu oogaya si dadkii aan ciid tukani ay u tukadaan salaada jumcaha la jumciga ka dhici maayee sidaas oo kale qofkii doonaya labadaba inuu isku darsado ilaa waa u banaan tahay waana sidoo nabigu alayhi salaatu wasalaam sameeyayba soo jumcaha uga soo qayb galo marka masaladaasi iyadana sidaas ayaa loogu baraarugsanaado yaan la moodin in la iska deenayo salaadii duhur hadaad maqashaan culimada qaar kood oo leh qofkii ciid tukada jumcuhu ka dhacaya yaan la moodin in la leeyahay duhurkina uu ka dhacaya Abdullah ibn Zubayr oo atharkiisu uu yahay ama waxa laga soo wariyay waxa u badan ay cuskadaan qolooyinka yiri duhurkii waa la iska dayn karaa kuma cadda inaanu soo bixin un baa la sheegay Abdullah ibn Zubayr marka waxay u badan tahay inuu gurigiisa salaadii duhur iskaga tukaday ila duhur masaajidka lagu oogaya ma jiro masaajidkii jumca lagu tukanayaa ilaahay bayna subhanahu wa ta'ala weydiisanayna maalmahan fadliga badan inuu khayr iyo wanaag iyo cibaado inoogu dhameystiro waxa kaloon xusuusinaya dadka muslimiinta horena waa u sheegnay maalinka sagaalaad waa maalinka Carafa soomkiisa si gaar ah nabigu inoogu dhiirigeliyay sanadkii tagay iyo sanadka soo socda labadaas sanad dambigooda in lagu dhaafano uu sheegay qofka maalmahan kale aan soomini maalinkaasi si gaar ah ha uga warhayo soomkiisana ha ugu talagalo